saddex jeer ayaana la saaray gaari Soomaalidu u taqaan Cabdibilaah oo kuwa ciidamada kamid ah gaarigaas oo ahaa mid boolis qaab darrada aan kala kulanay ciidamadii waxyeelada noo geystay waxa kamid ahayd waxaana la ka qabtay degmada Hodan waxa joogay taliyihii saldhigga booliska ee Hodan dhibaatooyinka aan tabanayna waxa kamid ahaa in inta Hodan la ka qabtay horwadaagna la geeyay kow oo aan u aragno anagu inaysan sharciba ahayn sababta oo ah markii qofku uu update yahay caadiyan waxa uu og yahay waxa qayb ka ah in ay si suuragal ahayn in degmo laga qabto degmo kale lagu xiro because meesha wax ka dhaceen waa degmadaas saldhigga leedahay okay inta kadib waxa dhacday waxaana la ka wada degmada Hodan oo maaragtay dhacdo ay ka socotay waxaana la geeyay saldhigga horwadaagana la geeyay raggii oobiga joogay oo iyaguna dhar cad ahaay oo booliska ka tirsanaa waxay iyaguna nagula dhaqmeen si fool xun sababta oo ah inagu bahaahin maanan ahayn oo jidana la ka kaxeeyay familaan leenahay ugu yaraan waxaan xaq u leenahay inaan ogeysiino dadkeena in la xiray waxay aan ka dalbanay in telefoonana saan u wacano ehelkeena oo ogeysiino in xiranahay bedelkeeda waxay noogu bedeleen aflagaado inaga oo taas tabanayna waxaa nala ku xiray meel aan ku habboonayn dad wariyaashu dadka kale waxa ma dheer laakiin waxaan kala jeedaa meel aan ku habboonayn ugu yaraan qof dambi galay meel lagu xirana la ku xiray anaga saadaradeed tabashooyinka halkaas ay joogeen waxa soo haray taliyihii dhacdada soo sameeyay anagu ciidamada marna uma arkin qalad galeen sababtu waxay tahay ciidan uu taliyahoodii qalad galaayo waxay la tahay waa wax laga filan karo iyaguna ma sahlana laakiin waxaan kala jeedaa anagu ciidanka waxna kama tabanayno sida caadiga marka loo eego sababtoo ah qof xidiga haysta oo mas'uuliyad lagu aaminay ayaa si qaldan noola dhaqmay markii koobaadna ma ahan waa la joogay in muddo oo aan xirnayn oo aanan ogeyn meelna la ka jiro sababta oo ah holwadaagan joognaa shaqadiisu soo dhameystay inaga oo xiran markuu shaqadii soo dhameystay wuxuu noogu yimi saldhigu yimi sidana loo sheegay in cabaara oo u nastay kadib waxa dhacday in uu yiri hal ii soo bixiyay wariyaashii waana la soo bixiyay xafiiska uu ku shaqeeyana la kugu geeyay si wuxuu noola hadlay akhlaaqda ka fog hadana waa la joogay waxaan kala kulmaynay shakhsigaasna xiray darajada sareysa wata wax aan aqligu maaragtay saliimka uusan ogolaanayn laakiin inagoo markasta ixtiraamayna sharciga iyo wada noolaashaha ayaan go'aansanay inaan inagu noqono maaragtay dad ogol markaas waxa loo meerinayo sababtuna waxay ahayd inagu hub ma sidano laakiin isagu hub sitaa wuu noo gacan qaaday waa ninka dhammaan taliyaha ahaa anigaan kula hadlaaya jirkaygan waxa ku yaala maartay juga isagu ii geystay iyo dhaawac iga muuqanayo si shakhsi askarta ku geysatay ugu dambeeyay isaga si shakhsi igu geystay gacanteedan midigu labiis gacan isugu geeyay maanan ahayn dambiile tuug ma aanan ahayn wuu imaroojiyay xaq ma aanan lahayn markii koobaad ma aysan ahayn waan isku sheegay gacan buu ii qaaday waxaan ku iri sharciga ilaali gacantaada iga daa wuu ka biyo diiday markii ugu horeysana ma ahan wuxuu damcay inuu telefoonadiisa iga qaado waan ka diiday inuu iga qaado because waxay halkan saldhig ma ahan waad i ceebaysanaysaa iga leexo sharcina uma liidin aniga i handado ama gacan ii qaado wuu ka biyo diiday askartii kale ayuu ii adeegsaday hadalkiisa aan ku bilaabay wili askarta tilmaameedka cali ma kaliga ayuu ahaa mise suxufiyiinta kan way kula qabeen ma uusan ahayn laakiin anigu waxaan garansiisnaa inuusan sharci u lahayn ninkan qaabka uu nolol dhaqmaa inaysan sharci ahayn wuxuu xaq u lahaa ogaa inuu yiraahdo markan anaa meeshan ka talinay waxaan idin arkaa xaaladda aan wadno iyo shaqadan ku jirno inaad anti ku tihiin ama aad ka soo horjeedaan saadaradeed waa la idin haynaya ogaan waa xirantiina nagu yiraahdo inagu sharciga kama soo horjeedno laakiin si qaldan buu nolol dhaqmay sargaalkaas ma ahan markii ugu horeysay oo shakhsiyan uu gacan saaro waa markii labaad waxaan kale waxyaabo aan tabanaya ku jira markaan saldhigga ugu nimid qofku sida shakhsiga waa aflagaadiyay anigu ahaa marka waxaan leedahay si gooniya la ii bartilmaameedsanay si gooniya la ii bartilmaameedsaday mar kale iyo mar saddexaad iyo mar tobanaad aan ku celinay askartu ma aysan qaldanayn laakiin ninka hoggaanka u ah oo Shucayb lagu magacaabo oo darajo qofka wataahi dadka uu ixtiraamo laakiin asaga ixtiraamka laga waayay ayuu nagu sameeyay iguna sameeyay